bariga dhexe uu gubanayaa halka badweynta Pacificana ay sii karkarayso. Haddaba arrintan daawada haddii aan la wadaagno, Shiinaha ayaa doortay in waqtigan istiraatiijiga uu uga faa'iideysto ama uu ka faa'iideysto halka Washington ay ka soo dirayso farriimo una dirayso dalkaasi Taiwan ayada oo ku leh hooy hal isjiro China Taiwan. iyadoo Mareykanku uu ku mashquulsan yahay xambaarayaasha diyaaradaha ee ku sii qulqulaya gacanka Carbeed, Shiinaha ayaa isna dhaqdhaqaaq ka bilaabay arrinta Taiwan. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa si cad u sheegay Taiwan waxay ahayd ayuu yiri qayb aan laga goyn karin Shiinaha tan iyo waqtiyadii hore, mana noqon doonto ayuu leeyahay dowlad madax bannaan. Haddaba arrintaani maxaa ka dhigay xilligan muhiim? Mareykanka ayaa waxaa la sheegayaa in saddexdiisa diyaarada xambaare ee la wada geeyay bariga dhexe. Kaydkii hubka ee Mareykanka ayaa sidoo kale diiradda waxa uu saarayay dagaalka Iran. xulafadii ku sugnaa gacanka ayaa ayaguna wajahaya cadaadis iyo xiisad sii kordhaysa. Shiinuhu wuxuu diyaar u yahay in mashquulkan istiraatiijig ah oo u bedelo ayaa la leeyahay fursad kana faa'iideysto. Haddaba arrintaani maxay ka dhigan tahay ama maxaa loo turjumi karaa? Beijing waxay u muuqataa in Washington ay ku leedahay adinku waxaad ku mashquulsan tihiin gacanka, anaguna waxaan diiradda saaraynaa Taiwan. Su'aasha ayaase ah, imisa xambaare diyaaradeed dagaal ayay u baahan yahay Mareykanka si uu uga hortago damaca Shiinaha ee badweynta Pacifica iyadoo isla waqtigaas uu ku mashquulsan yahay xiisadda dalkaasi Iran. daawadayaal bariga dhexe uu gubanaya halka badweyntii Pacificana ay sii karkarayso. Mareykanka oo isticmaalaya hooyada bambooyinka. Haddaba daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij yar oo ku saabsan bamkan lagu tilmaamay bamka loo yaqaan hooyada bambooyinka, lana soo gaabiyay GBU-43/B Moab. Haddaba bamkaasi muxuu yahay? Mase dhaba in Mareykanku uu isticmaali rabo dagaalkaasi Iran? haddaba daawadayaal iyadoo la filayo khudbadda uu dhawaan jeedin doono madaxweyne Donald Trump, waxa soo taraya su'aal ku saabsan suurtagal in Mareykanku uu adeegsado bamka weyn ee loo yaqaan bamka hooyada bambooyinka. bamkani Moab waa bam caadi ah oo nuclear ahayn oo ugu weyn ayaa lagu leeyahay hubka uu Mareykanku maanta haysto, wuxuuna miisaankiisu gaarayaa ku dhawaad 11 tan, wuxuuna ku shaqeeyaa farsamada qaraxyada hawada ama waxa loo yaqaan air blast, taas oo ka dhigan in uu ku qarxo meel hoose oo hawada ka mid ah ka hor inta uusan gaarin dhulka ama soo taabanin dhulka si uu u burburiyo ama uu u sameeyo ayaa la leeyahay hirar qaraxyo oo aad u xoogan oo burburin kara dhul ballaaran, difaacyo adag iyo xaramo military oo dhulka hoostiisa ku yaala. Mareykanku si rasmi ah hal mar oo kaliya ayuu bamkan u adeegsaday, taas oo dhacday ayaa la leeyahay intii lagu guda jiray 2017 markaas oo la weeraray fariisimo ay lahaayeen kooxdii Daesh ee ka dhisnay dalkaasi Afghanistan. hadalladan iyo mala'awaalka xaladalan soo baxay ayaa soo kordhay ayaa leeyahay kadib markii Mareykanka ciidamadiisu ay sheegeen ama ay soo saareen digniin amni oo ku socota dadka rayidka ah ee ku sugan dalkaasi Iran, iyaga oo ku baaqay inay ka fogaadaan goob kasta ama xarun kasta oo la xiriirta howlaha military, iyagoo ka digay in goobahaasi ay noqon karaan bartilmaameedyo suurtagal ah haddii ay sii xoogeystaan howlgallada military ee haatan ka soconaya bariga dhexe. daawadayaal waa aniga Asad Cali Kaftamay, wixii ka soo kordhana waa inoo wadaagi doonaa.